rays liya meel qabo dunida ugu raaxa badan dadweynuhu raadiyaan rasuulkii duca ku maray ragad baan qabanayaa dhulaan roobku u ka kicin daruura rugu ahoo ramaaskiyo geedkii baxay indhaga lala raacayo ragad baan qabanayaa biruhu waa raacbaraac qudaartu rabka ka tahay qadkeedu ragad ka baxo biyaha ruuxii cabbaa ragad kama uu tagi deegaanka Calmadow waxa uu ka tirsan yahay gobolka Sanaag ee Puntland waa dhul cimilo ahaan ka duwan deegaanada kale ee Soomaaliya waa deegaan qabow oo dhulka ka sareeya wax badan waxa ku yaala beero wax soo saar kala duwan leh deegaankan waa dhul ku habboon dalxiiska socdaal aan ku tagnay aniga iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey ayaa noo suurta gashay inaan tagno dhowr tuulo oo Calmadow ka tirsan socdaalkeen ugu horeeyay waxaan ka bilownay tuulada la yiraahdo Xabaasha Wacle oo markii dambe naloogu sheegay in loo baxsho Guriyasamo tuulooyinka qaarkood waxaa naloo sheegay in ka badan 20 beri inaysan qoraxdu arag iyadoo cirka ay qariso ceeryaamo xilliyadaasina waxaa da'aya roob aan kala go' lahayn oo wato qabow qoysaska ku nool halkan waxay noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha hase yeeshee waxyaabaha ka soo go'a beeraha badan looma iibgeeyo suuqyada sababtuna waxay noogu sheegeen inay aad u adag tahay wadooyinka soo gala halkan gaadiidka waxay halkii mar oo ay qudaarta iyo geedaha timirta qaadayaan qaataan lacag aysan awoodi karin beeraleyda Calmadow Maxamuud Faarax Axmed Bulshaawi waxa uu ka mid yahay dadka ku nool deegaankan Calmadow halkan waxa la yiraahdaa moon magacayga waxa la yiraahdo saddexan Maxamuud Faarax Axmed Ali baa la yiraahdaa aanaysteedu waa Bulshaale halkan waxa la yiraahdaa casho wali cashi lama gaarin waxa weeye qayb kamid ah halkan waxa la yiraahdaa meesha la yiraahdo waxaan ku baa la yiraahdaa moon bayna ka horeysa مرعي رجال إن شاء الله بسم الله الكريم واتجي دونا عشي فانو لفريق ما قدنا ولي مينو قارن طب كيونا كدمان إن شاء الله بسم الله الكريم كل كروح ليس وحنقول يومي سوا سوار كدون نمو waxaan saaranahay buurtii geeldora waxa weeye ceeriyaamadii ayaan u tagnay runtii waxa weeye waa soconnaa oo waxa weeye hal ma arko iftiinka gaariga xataa waxa weeye aad buu u yar yahay waxa qarinaysa ceeriyaamada runtii qowowgan aan arkayo waa markii igu horeysay noloshayda qowow noocaas oo kale maana arag waxa la ii sheegay Soomaaliya meesha ugu koowaad qowowgeedu inuu yahay ceerigaabo meesha labaadna waxay tahay geed la rifay oo inta u dhaxaysa Laasqor iyo Baran runtii dhulkan waa dhul aad iyo aad u qabow jawi waxaan soo galnay muxuu ahaayay kii hore ka duwan waxaad dareemi karaa ama ka hadli karaa qowowga noocan oo kale qof yimi sida la sheegay daruurihii ayaa soo galnay markii loo eego maxaa wadadan geeldora waa wax laga sheekeeyo weeye hadda kaamiradiiba banaanka kula soo baxay gaarigii waa saarnahay qabow jaakado iyo bustayaal baa la qabaa subxaanallah dhulkaynu waxa weeye nimca taal isku mid ma aha jawigu waa kala duwan yahay cimilada
intii aan ku jirna dalxiiskeena casha ee gobolka Sanaag waxay indhahigu qabanayeen geel lo iyo ido daaqay dhul wada cagaar ah iyo beero wax soo saar leh waxaan noo suurta gashay inaan soo aragno qaar ka mid ah beeraha ugu quruxda badan halkan iyo goobaha dalxiiska ee ku wanaagsan iyadoo dadka iyo deegaanku ay isticmaalaan biyo ka macaan kuwa laga cabo magaalooyinka kale ee Puntland kuwaas oo ka imaanay ila ku yaala xagga sare ee buuraha Cali Maxamuud waxa uu ka mid yahay odayaasha ku nool deegaanka Calmudug gaar ahaan tuulada Rakaad waxa uu sheegay qoysaska inay noloshooda ku xiran tahay hagaajinta wadooyinka maadaama aan wax soo saarka beeraha ay sadhaafin casha deegaanka Calmudug barwaaqo qaba waa dhul barwaaqo ah laakiin noloshiisu waxay ku xiran tahay wadooyinkaas oo wax laga ma soo baxo qudaarta ku taala wax ka qaadaya liinta iyo bambeelmada wax ka qaadaya ma jiro dhulkay nooga qubataa wadooyinka aad arkaysaan waxaan ku samaysanaa xoogaya cid wax naga qabatana ma jirto ninkii waxna taraya oo hadii dalka u dhashay iyo mid hadii kale dawlad gobolada ah ninkii waxna taraya qalab ninna siiya iyo nin qotul duruur loo keen intaasan ka baryeynaa marka Cali waxa iga waranta hadda Calmudug baa joognaa dhul aad u qurux badan oo dalxiiska xataa ku wacan baaragna adu meesha maxaa ku leedahay meesha waxaan ku leeyahay anigu deegaan baan ahay nin deegaan baan ahay haddaan deeganahay toban neef ariyaan ku dhaqdaa dadkeygina waa joogaa beerna waa isku joogaa wax kale kama qabto waxa weeye waxa adagtiisa wadada waxaan ku sameynaa wax xoogay marka beerahan Calmudug deegaanka ku yaala maxaa ka soo go'a waxa ka soo go'a liintii saytuunkii kaabishkii qudaar oo iska dhan wax noo qaadana mar sababta marka magaalooyinka lagu qaadi waayay maxay qudaartaas wada la'aan marka hadda wadadan aan marayno kale bari hoos u soconaa Calmudug wadadan sida loo qurxiyay wadada caadiga alaamiga ahayn yaa sameeyay oo ka samaysanay waxaan u samaysanay ilaa durduri inu gaarsiino beeralay hadaan nahay qudaarta awgeed dhulka nooga qubanaysa awgeed marka waxa u baahantiin in wadooyinka la hagaajiyo si wax soo saarka Calmudug magaalooyinka kale ee Soomaaliya loo geeyo si magaalooyinka kale Soomaaliya inuu noogu gaaro waxaan u baahnaa wax wadooyinka la hagaajiyo xoogaayo iyo hantida waxaan haysano midnaba ka jeclaysan mayno marka dawladda iyo dadka hantida haysta ee dhulka u dhashay maxaad ugu baaqaysaa dadka dawladda iyo dadka hantida haysta waxaan ugu baaqayaa inay wax naga qabtaan wadooyinka inay wadooyinka wax naga qabtaan marka wadooyinka u baahan wax laga qabto kuwe wadada aan ilaa boosaas hadda waxa ku geysana ma haysano hadii qudaarta iska qubanaysa oo boosaas inoo gaari lahayd tii lacagtu ma sha Allah bay noqon wadooyinka ka samaysan kari lahayd marka Calmudug tibirti ma ka soo go'daa waa ka soo go'daa waa ku taala hadeerna waa ku beernaa waxa weeye marka wada ma haysano waa bilaa wado waxa aan beerano waa bilaa wado wadooyinka waa naga go'an yihiin wax naga qabtaan u baahanahay dawladda iyo ninkii dalka u dhashaba حبوك في الإخوة سليمة ده حتى ده شد حقه ده شنو ده Calmudug baad qoraysa Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ayaa dadka ugu baaqay in horumar laga sameeyo goobaha dalxiiska iyo waliba goobaha kale wax soo saarka gaar ahaan deegaanka Calmudug janaale kama bixin shalaambood kama bixin afgooye waxay ka baxday degmada Laas Qoray ee gobolka Sanaag waa casha dahabka ee hodanka ee waxa weeye Calmudug dhulkaas Ilaahay la siiyay nimcada fertilizer-ka wax walba ay ka soo baxayaan horay bay Soomaalidu waxay u tiri intay beer ku siiso bahda kuma siiso wardarbiyada intaynu fadhiyi lahayn war fadhi ku dirar intaynu samayn lahayn war intaynu qabyaalad ka sheekayn lahayn war intaynu habsaami lahayn
ورنتين نقاط عون لهين دول كان إنه كفائدة يسنو نمعة طال إنه كفائدة يسنو بضي بري بوحوي إلهي وحنا نسيه نمعة دي أجف قوي نمعة أنا برواقة بيرها كتالله وحي أباهن تاي إن يدنا لقى فائدة يدنا لو فائدة وضدي لو صامر لها وحي أباهن تاي إن لا بيسو أدون كم جرى دل أي لسان هي أدو أدون كم جرى دل دولة ذكر أي لسان دل والبدد كيسا لسه دد كيسا تاريخ سماية دد كيسا مقع سماية وين إنه حوله هنا يحوجنا يأقونتنا إنه كتر قلنا سيدا إنه دول كانوا هرمان اللهين سيدا إنه ودوين يقول السلاحين وحنا نقول لها وح الله بقى ماشان وماشى الصومالي أقول برواقة بدن وماشى أقول قروح بدن وماشى أقول رزق سجية برواقة خيرات كبدن إنه كفائدة يسنو عدونا كإلاشنو إن عدو إن جنا إن كلا قيبين أو سياسة استعمار كقيبي وحكم إن كلا قيبين إن جنا إنه وحين إن عضا إنه كجاش جورنا وإنه جنمو قرن الصوماليات إنه هلنا بينه عدو كقب حكرنا كنا نقول يسكرنا سياسة استعمار كإنه نلدرنا قيبي وحكم إنه نلدرنا دولة النمو الصوماليات سيدا إنه هو للهين إنه وحوي فلان كهذا قلنا فاطمة جبريل waxay kamid tahay dadka dibadda dib uga soo laabtay deegaanka Durduri ayay ka sameysatay beero wax soo saar leh kuwaas oo qaarkood lagu beeray in ka badan 400 oo geed waxay dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool iyo gudaha ugu baaqday inay dalxiis ku yimaadaan deegaanka Calmadow oo kamid ah dhulka ugu cimilada wanaagsan Soomaaliya magacayga waxa la yiraahdaa Faadimo Jibriil waxaan deganahay Durduri oo ah xeebta Calmadow ka hooseysa oo badda ah waxaan jeclahay inaan idinla wadaago in dalxiis hadda aanan ugu baaqaynin dadka ajnabiga ah oo u furan dadka Soomaalida ah oo kaliya oo fiican oo aan la heli karin in laga sameyn karo oo ka heli kartaan idinku xeebtan iyo dhulkeeda balaaran iyo buurta Calmadow la yiraaho iyo maydiga ka baxa dhirta kumaankumka dhira oo adduunka meel kale aan ku online oo halka ku taala beeraha laga sameeyay oo maaragtay anwaac badan ah dhulka iyo buurihiisa oo kale xataa kaymaha kale udgoon ah midba meesi gooniye urayo dhirta aawadeed waxaas xayawaankii ku noolaa oo meeshii yaala oo aan cidi oranaynin lacag ku daawo waxa fiicnaan lahayd bal in aad timaadaan oo caruurtiina dhalinyaradiina keentaan oo ay badda markay ka baxaan gaariba ha ku tagaan buurta hoosteeda ee lugayaan oo hiking sameeyaan oo buurta dhakadeeda ay u baxaan oo arkaan dhowr dhalinyaro oo dibadda ka timi oo aan asxaabnahay oo aan geeyay waa ilaa walaayihiin marka cidii rabta inay fasax caruurtooda keento haday goor hore inta noolahay ila soo xiriiraan ama idinkaba idin la soo xiriiraan qolooyinkiinan ninka la yiraahdo tigay ba hadda khabiir tourismta ku ah wadanka waa heli karaysaan in aad idinko awr fuushan farda fuushan dabeera fuushan lugaynaya gaari fuushan aad dhulka khibradda heshaan socotaan lugaysaan marka fadlan caruurta haba nacaan wadankooda bal horta wadankooda suu yahay soo tusa oo ha ku soo raaxaystaan marka hore hadhowto bay noqonaysaa ma nacayaan mise waa laakiin markaaniba wax fiican ka aqoon maba jeclaan karaan
marka intaa ilmahaaga u samee gobolka Sanaag gaar ahaan waxaan ku yiri degmada Laas Qoray baa halkan laga xukumaa waxaan ku iska garan kartaa Geeldooreen ka soo baxnay meeshan waxa la yiraahdaa Calmadow baa la yiraahdaa waa dalkii quruxda waa dalkii dahabka waa dalkii uduga waa dalkii waxaan ku yiraahdaa beeraha waxaan ku waad ka garan kartaa waa dalkii waxaan ku hidiye dhaqanka iyo geeli waad iska arki kartaa waxaan ku yiri Maxamedow hadda koor waxaan ku hees baan ka tiriyay halkan heesta waxa la yiraahdaa Sanaag dhulka bilicdalo marayaan biyuhu dhulkan bilicdalo marayaan biyuhu beeraha qurxoon rabbi beerayo bilicdii Sanaag ma ku soo bara qoysaska ku nool Calmadow oo intooda badan ay ku tirsan tahay wax soo saarka beeraha ayaa ku baaqay in wax loo qabto arrimaha kale ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah xagga waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka oo sidii loogu talagalay deegaankani u soo gaarin tuulo kasta oo aan tagno dadka ku nool waxay noo sameynayeen martiqaad iyo soo dhaweyn taasoo qayb ka ah dhaqanka suuban ee Soomaalida waxay dadku sidoo kale noo tilmaameen in dhulkan uu yahay dhulka aad u qurux badan ee ku yaala deegaanada Puntland sidoo kale waxay noo sheegeen inaysan jirin dad iyagu dhibaateynaya deegaanka marka laga tago deegaano laga sameynayo dhuxusha oo hay'adda adeesi dadku ay wacgelin ay sameeyeen laga hortagay sidoo kale dadku waxay noo sheegeen in deegaanka Calmadow aysan joogin al-shabaab inkastoo markii aan ku jirnay dalxiiskeena Calmadow ay dadku noo sheegayeen inay jiraan tuhun iyo waliba cabsi laga qabo in deegaankan ay ku nool yihiin xubno ka tirsan al-shabaab hase yeeshee marka arrimahaas aan ka warayso waxay tilmaameen in haba yaraatay aysan waxba ka jirin oo dhulkan uu yahay dhul aad u qurux badan una baahan dalxiis iyo maalgelin qaybteena koobaad dalxiiskeena Calmadow intaas ayaa ku soo gabagabeynaya waa kooxdii dan nuurshe oo idin leh sidaas iyo rays liya meel qabo dunida ugu raaxa badan dadweynuhu raadiyaan rasuulkii duca ku maray ragad baan qabanayaa dhulaan roobku u ka kicin daruura rugu ahoo ramaaskiyo geedkii baxay indhaga lala raacayo ragad baan qabanayaa biruhu waa raacbaraac qudaartu rabka ka tahay qadkeedu ragad ka baxo biyaha ruuxii cabbaa ragad kama uu tagay abliiruuniyo lahaa rugtooda aan dhaafi jiray raxmaankii inuu cafiyey ragguna uu raadin jiray ragad baa laga hela dawadan lagu roorayo diyaanadan laysku rogey rugahayagii ma tegin haweenku ma raadiyaan raxmaankay ka cabsadaan Thank you.